kulanti wacan oo wanaagsan idilkiin baddaawadayaal ku soo dhawaada mar kale iyo Somali Coverage TV idinkaga imaanaysa magaalada caasimadda Mareykanka u ah ee qodobo dhowr ah oo wada xasaasi ah ayaan tabintan si gaar ah ugu eegi doonaa caawa taas oo ay ka mid tahay khilaafka ba'an ee ka dhex abuurmay Somaliland kadib markii madaxweynaha Somaliland Cirro uu ka soo noqday safarkii uu ku tagay dhinaca Israa'iil waxaad kaloo maqli doontaan aaska hogaamiyihii Iran oo malaayiin dad ah ay ku qulqulayaan wadankaasi Iran si ay uga qayb qaataan aaskiisa xuutiyiinta Yemen iyo Sacuudiga oo mar kale ay ka dhex aloogsan tahay iyaguna wixii ugu darnaa oo khilaafaad iyo goodis ah oo ay hawada isu marinayaan weerar ka dhacay masaajid ku yaala Columbus Ohio ayaad maqli doontaan iyo Mamdani oo si aan caadi ahayn buudka kula tuntay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump arrimaha 4th July oo maanta ku beegan oo dalkan uu u dabaaldegayo 250 guuradii markii ka soo wareegatay markii xornimadii dalkan uu ka helay Ingiriiska haddaba waxaasi oo warar ah iyo faaqidaadooda waxaa ila falanqeynaya oo sidaad arkaysaan khadka dhinaca Britain uga jira Cabdixafiid Maxamuud Jaamac oo isagoo madaxa British Somali TV Cabdixafiid soo dhawow bal horeyntii howluhu way fara badan yihiin wararkuna waa ay badan yihiin caawa mar kale waxaan ku faraxsanahay inaan kugu soo dhaweynayo Somali Coverage TV haddii bal aad eegtid arrinka ku salaysan Somaliland iyo khilaaf wararka iyo barnaamijyada tayada leh ee sanka isku haya aynu ka faa'iideysan saan caalamka oo la socono sahra inta kadib sideen sheegtay madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro markii uu soo noqday Israa'iil uu ka soo noqday waxa ka horeysay in lagu doortay cod aqlabiyad ah oo noociisa kala doorashooyinkii Soomaaliland waayihii dambe ka dhici jiray aan lagu arkinin oo markaas kalsoonida codka shacabka Soomaaliland uu ku soo baxay waana shakhsiga kaliya maanta Soomaaliya ee markaas cod shacab ku fadhiya si kastaba ha ahaatee taaskiga ugu weyn ee hor yaallay waxa ay ahayd markaas gidaarkii baadigoobka intilaafka ku gudboonaa ee 35 sano Somaliland ay ku riyoonaysay in madaxweynayaashii hore isku day fara badan kadib aysan ku guuleysanin laakiin Cirro uu markaa noqday ninkii ku guuleystay oo markaas xukuumaddii u horeysay oo markaas qaramada midoobay ku leh kursi ku leh in uu markaas uu ka keenay markaa intilaafkii isla mar ahaantaasna saamayn fara badan caalamka ku leh gaar ahaan Mareykanka waana sababta Cirro uu markaa u qaatay tilaabadaas weyn ee cid hore ugu dhacday aysan jirinin ama isku dayday inta aynu ka warqabno hase yeeshee gudoomiyaha xisbiga ka Maxamuud Xaashi Cabdi oo asaga laftigiisu ah nin siyaasi oo rugcada shaqooyin fara badan ka soo qabtay Somaliland iyo xilal waaweyn ayaa asaguna gaashaanka u daray oo yiri qadiyada Qudus in safaarad laga samaysto waa qaadacnay yeeli mayno marka itiraafka asagu ma diidana laakiin wuxuu diidan yahay in safaarad laga furto Qudus ayuu diidan yahay oo mana arka arrin carabeed iyo arrin falastiiniyeed ma arke waxa uu sheegay inay tahay arrin islaam ah waxa kale oo xusin mudan wadanka kaliya ee muslim majority ah ee kula safaarad markaas Jerusalem kula galbeedkeeda in ay tahay markaas dalka Kosovo laakiin wadamada waaweyn ee muslimiinta ee safaarada kule Israa'iil Tel Aviv ayay ku yaalaan Turkiga kamida Jordan ba kamida dowladda dalka Masar ayaa kamida Azerbaijan ayaa kamida Imaaraadka kamida waa there you go marka in halkaas safaarada lala aado ayuu Maxamuud markaas uu door bidayay laakiin waxa muuqata in aysan markaa waxba iskula harinin oo hadallo adag la isku adeegsaday Somaliland waxay ku faantaa dimuqraadiyad marka inay doodaan ayagoon hub isku qaadanin iyada laftigeeda wax la soo dhaweysaa waa tahay marka mar haddii itiraafkii ay raadinayeen Somaliland ay ka dhex arkeen dhinaca Israa'iil maxaa keenaya waqtigan oo madaxweynihii uu booqday halkaasi dabcan waxa wax soo jiray ayay ahayd in hadda ololkan hoos soo baxaya xataa shacabka culimada waxa jira xataa wadaadda la xiray oo Hargeysa lagu xiray waxa jirta dad fara badan oo aragtidan qaba inay ka soo horjeedaan Qudus in laga furo safaarad ay yeelato Somaliland marka muddada intaas la egmo wax soo jiray bay ahayd mise wax hadda booday ayay noqotay arrintan markii itiraafka lagu dhawaaqay sida aan sahray wada ogeyn dadka qaar waaweyn waa aamuseen aan ka warsugnay yiraahdeen Muuse Biixi oo hadlay oo beertiisii ka soo orday sidoo sheegay waxa uu yiri khayr Allah nooga dhigo hadalkiisu hadal siyaasadeed buu ahaa
islahaa bal wax aynu hubsanno meeshay caga wax dhigtaan maamulka xukuumadda haysaa laga dambeeyo waxa la xiiriyo aynu aragno ayay ahayd laakiin waxa hadda karka kirliga ka keenay waxay tahay meesha safaaradda laga furtay laakiin waxaan jeclaan hoosta ka xariiqo dadka somaliland dariska gooni istaaga iyo ictiraafka baarigoobkiisa muddada dheer ku riyoonayay ayagu way taageersan yihiin ictiraaf in la helo ama israa'iil ha laga helo ama maraykan ha laga helo ama dowlad kale ha laga hele way taageersan yihiin laakiin arrintu meeshay ka taagan tahay waxa weeye qudus qadiyadeedu qadiyad islaam weeye ayuu leeyahay maxamuud 57 wadan ayaana si bareero cad uga soo horjeestay su'aalaha la isweydiinaya waxaa ka mid ah wadamada muslimiinta Soomaaliland way u baahan tahay inay ictiraafaan oo xiriir ay la yeeshaan Sacuudiga ku jira Masar ayaa ku jirta oo arrintan u aragta laftigeedu xalis iyo badda cas in lagu soo dhawaaday iyo baabul manda marka wadamadaas waxa ay ku dhiiran waayeen annagu maxaynu ugu dhiiranaynaa oo aynu u aadaynaa ayuu hadalkiisu u dhacayay oo markaa xalis uga imaanaysa laakiin isagoo qadiyadda inay qadiyad islaam tahay ayuu ku adkaystay maxamuud xaashi dad taageersan ayaa jira iyo dad ka soo horjeeda oo markaad aragtid dadka reer Somaliland ee baraha bulshada wax ku qoriya iyo Soomaali weyntu qaarna asagay taageersan yihiin qaarna madaxweyne Cirre iyo go'aankan uu qaatay ayay taageersan yihiin waa tahay inta aan ka bixin marka isla arrimaha gobolka inta qusaysa ayaan jeclaan lahaa inaan soo qaato waxaa jirta maanta si lama filaana unba hal mar waxaa soo baxday in xuutiyiinta Yemen ay iyo Saudi Arabia si rasmi ah isugu goodiyeen hawadana hadalla adag ay isu mariyeen dowladda maaragtay joogta cadan dhinaca kaleeto ayaduna waxaa jirta Yemeniyiinta ay awood badan lahayn in ayaguna kulan degdeg ah yeesheen markii diyaarad ka timid ayaa la yiraahday dhinaca Iran ay ku degtay dhanka Sanca oo xuutiyiintu ay hayaan 11 sano markii ugu horeysay ay tahay diyaaraddaas halkaas ay gaarto khilaafkan Sacuudiga iyo xuutiyiinta maxaa soo dedejiyay waqtigan aad iyo aad su'aal aad wanaagsan waay Sahra xilligeedina taagan waxa xusin mudan xuutiyiintu inay sheegeen hawada sare ee dowladda dalka Yemen in gaar ahaan qaybta xuutiyiintu ay ka taliyaan Sanca iyo Yemen Sanca iyo Cadan bay kala yihiin ognahay marka waxay sheegeen in hawadoodii lagu soo xadgudbay aysan u dul qaadan doonin Yemeniyiintu arrintaasna daandaansi ay u arkaan marka dowladda Sacuudigu ay taageeraan waa dowladda markaas officialka ee markaa Sacuudiga iyo caalamku ay intiraafsan yihiin xuutiyiintuna dowladda ma maqli karaan Sanca ka dhisan sidaas awgeed xurguftaas jirta iyo waliba dagaalkii lagu soo qaaday 2015 oo dad fara badan xuutiyiinta looga laayay iyaguna weeraro culus ay qaadeen oo askar Sacuudiga lagu laayay kuwa Imaarada lagu weeraray waxaa jirta marka colaadaas ayaa soo laba kaclaysay waxaana muuqata haatan xuutiyiintu inay markaa doonayaan in ay weerar qaadaan oo ay markaas ka dhan dowladda dalka Sacuudiga waxaana xusid mudan inay xuduud ay leeyihiin ceelasha shidaalka ee ugu badan Sacuudiguna ay markaa ku teedsan yihiin xuduudkaas ay dowladda Yemen ay la leeyihiin sidaas awgeed Sacuudigu wuxuu dareemayaa halis weyn inay halkaa ugaga soo socoto oo doonayo inuu markaa ka hortago dowladda ay jirtana markaa uu ku taageero waxaynu ognahay inay meesha ay Yemen ku taalo ay tahay meel markaas aad iyo aad muhiim u ah oo Soomaaliya markaa qarka u saaran maraakiibtii caalamka ay marayaan Sacuudigana halkan ay u tahay il weyn oo dhaqaale haddii ay ahaan lahayd Suez Canal markaa shidaalkiisa uu ka dhoofinayo dabadeedna Mediterranean-ka iyo Yurub u gudbaya iyo haddii ahaan lahayd Indian Ocean kuwa soo aadaya iyo hoos oo markaas baabul mandab aan looga maarminin su'aashu waxay tahay xuutiyiintu baabul mandab xiri doonaan haddii ay baabul mandab ay ka xiraan Sacuudiga wax badan oo dhoofinayay iyo qorshihii Maxamed bin Salman ee ahaa saaray Vision 2030 ee dhaqaalaha Sacuudiga lagu balaarinayay ayaa araxda ka jabaya laakiin Sacuudigu waxa ay wafdi u direen dalka Iran ayay u direen oo tacsida ka qayb qaadanaya sidaas awgeed waxa suurtagal ah xuutiyiinta inay markaa ay Iran ay la hadasho oo labadan marin biyoodba Sacuudiga aysan ka xirminin marka waa arrin dabka saaran wax la filan karana lama qiyaasi karo laakiin halis fara badan ayaa halkaa ka soo socota
waa tahay sida muuqatana sacuudiga hadda waxaa la leeyahay dhan markii la eego Donald Trump iyo MBS ama Mohammed bin Salman way kala furteen sababa la xiriira arrinta Iran marka sidaas aad sheegtayna waxaa suuragal ah in Iran arrintan ay soo kala dhexgeli karto maadaama labada dhinacba iyaduna dhanna ay xiriir kala leedahay Xuutiyiintii iyo maaragtay awood kaleeto oo ay aad isugu xiran yihiin dhinaca Shiicada dhinaca dagaalka ka dhanka ah Israel iyo wax walba haddii ay noqoto waa tahay Cabdi Xafid haddaan intaas taas uga gudubno waxaa jirta dhinaca kaleeto isla arrimaha gobolka ayaynu ku guda jirnaaye Iran malaayiin dad ah ayaa waxa ay ku qulqulayaan gaar ahaan madaxda caalamka oo dhan intooda badan si ay uga qayb galaan dalkaasi aaska loo sameynayo hogaamiyihii waddankaasi Ayatollah Ali Khamenei oo 28 bishii Febraayo lagu dilay weeraradii joogtada ahaa ee ku socda waddankaasi Israa'iil iyo Mareykanka bal waxaad iga warantaa sidee baa qabanqaabada aaskan ilaa iyo haatan ay u socotaa maxaase la filayaa in lagu arki doono iyo inaan lagu arki dooninba hogaamiyaha waqtigan jira ee waddankaas Iran su'aaladeed aad wanaagsan saara mar kale waa sidaas sheegtay ku dhawaad 25 ilaa iyo 30 milyan dad ayaa la qiyaasaya inay aaskan ka soo qayb qaataan waxaan leeyahay aas la mid ah qof loo sameeyay ma jirto kankii ka horreeyay 1989 ayuu ahaa markaas ruuxullaahi aaskiisii laakiin markaad eegtid kaas wuu ka ballaaran yahay waxaana sabab u ayaa leeyahay sida loo khaarijiyey cidda khaarijisay iyo Iran oo siyaasad gudaha iyo dibadda labadaba ku dhex wadata arrintan oo ah markaa dadka Iiraaniyiinta in la wadaniyeeyo kacaan la wadaniyeysan lagu beero isla mar ahaantaasna ay noqdaan dad u caraysan Mareykanka iyo Israa'iil si markaa dhexdooda aan looga kalluumaysanin xilli Iiraan ay aaminsan tahay in lagu soo daba kaclayn doono oo weerar kale lagu soo qaadi doono oo saddexaad sidaa awgeed waxay rabtaa dowlad iyo dad isku duuban ayagoo ah hadday dagaal gelayaanna ay dagaal kala qayb qaataan haddii ay nabad u diga roganayaanna ay nabad u diga rogtaan Iiraan ayay doonaysaa marka taas waa siyaasadii gudaha iyo dadkii oo markaas ololo siyaasadeed iyo wadan jeclayn ah iyo dareen carruurtii yarta halaayay iskuuladii la burburiyey ceelashii shidaalka iyo kaabayaashii dhaqaalaha buundooyinkii oo waxay galabsadeen aan la garanaynin oo bulshada rayidka ah ay leedahay waxaasoo miiran oo la burburiyey ayaa la rabaa in lagu kiciyo dhinaca kalena caalamka iyo taageerayaasheeda iyo shiicada ayay fartiin u diraysaa xilli ay Iiraan markaa haatan sida lagu soo warramayo kalsooni fara badan ay ka qaaday dagaalka oo ay u aragtay markaa laba qoodood oo waaweyn oo super power ah inay ku soo duuleen dhinacoodana dhulka la dhigi waayey Strait of Hormuzna gacanta ay ku haysa marka aaskaanu waa aas siyaasadaysan waa aas qaramaysan waa aas diimaysan wajiyo fara badan ayuu leeyahay saar waa tahay oo markii dhinac laga eegana xataa waxa uu ku soo beegmayaa xilli waddankaasi si weyn ay uga socoto khilaafaad iyo duqeymo xoogan iyo dagaal joogta muddo 6 bilood haatan ku siman waa sidaas aad sheegtay waan arki doonaa 3 bari ilaa 4 bari oo soo socoto aaskan waa uu sii jiri doonaa ilaa 9 bisha laga buddhigo hogaamiyihii horeetay Iran wararka ku saleysan arrinkaasi waa kuwa isu soo taraya oo waji leh subax walbaba waxaan jeclaan lahaa ku watee sida aynu arkayno dowladaha ugu waaweyn ee u soo diray wafdiga waxaa ka mid ah Shiinaha oo Iran ay saaxiibo yihiin waxaana xusin mudan Sacuudiga iyo Iran oo isku dagaalay arrinta Xuutiga Shiinuhu inuu heshiisiyo xatana Mohammed bin Salman oo heshiiskiisa Shiinaha oo cirka isku sii shareerayo wasiirkiisa arrimaha dibadda Faisal bin Farhan uu joogay labadii maalmood oo soo dhaafay Beijing uu joogay marka Ruushka iyo Shiinuhu waxa ay soo direen wafdi culus oo uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee Ruushka Dmitry oo markaa ka qayb qaatay shacabka reer Iran u tacsiyay raali oo soo waa tahay aad baad u mahadsan tahay xogtaasi dheeriga ah dhinaca kale gudaha dalkan Mareykankan u soo noqonaynaa oo ayaduna warar isu soo taraya ay ka jiraan haddii ay noqoto weerar loo geystay masaajid ama 250 guurada waddankan Mareykanku u dabaaldegayo xilli Mareykanku uu qaybsan yahay ayaa la dhihi karaa waqtigan waxaa jirto in galabta markii ay ahayd koodii iyo barkii xilli ku siman in masaajid Umar bin Khattab la dhaho oo ku yaala gobolka Ohio magaalada Columbus weerar loo geystay oo nin cadaan ah masaajidkaasi ninkii waardiyaha ka ahaa
uu weerar meel uu ka yimid aan la ogeyn uu bastoolad usoo qaatay uu ku dhuftay kadib markii ninka masaajidka waardiyaha ka ahaa iyo nin kale ay wada murmeen ayaa la yiraahday marka arrintaasi waxa ay abuurtay cabsi fara badan iyo walwal dadka jaaliyadda Soomaalida iyo muslimiinta guud ahaanba gobolkaasi gaar ahaan booliisku arrintan soo kala dhex galay oo maaragtay qabtay ninkii baaritaanna wada ayaa waxa ay yiraahdeen arrinkan baaritaan ayaan ku sameynaynaa waxaa jirta durba warbaahinta aan Soomaalida xataa ahayn ee gobolkaasi ka soo baxayso oo sheegay in falkan uu yahay fal naceeb ku salaysan marka wixii ka soo kordha ayadana oo ay si weyn u baarayso warbaahinta waa la wadaagi doonaa daawadayaashana Cabdixafido laakiin waxaa jirto guud ahaan dalkan Mareykanka in naceebka dadyooga muslimiinta ay soo badanayso soo galootiga iyo sidoo kale tawarrada ka dhacaya masaajida waa sidee adinka xaqiina UK-na Yurub oo dhan UK ay ka mid tahay inkastoo midowga Yurub ay ka baxday laakiin qaaradda ayay ka tirsan tahay Ingiriisku waxaa jira kooxaha midigta fog u janjeera oo ka shidaal qaadanaya Donald Trump iyo Elon Musk iyo ragga la midka ee xag jirka inay ku soo badanayaan Yurub haddaad Jarmalka eegtid Sweden haddaad eegtid Norway sidoo kale inkastoo Norway ay ka yara qabowdahay Sweden iyo Jarmalka marka loo eego halkan boqortooyada Ingiriiska waxa ka dhacay dibadbaxyo gilgilay Ingiriiska noocooda kala aan la arkinin muddo dheer oo markaas kooxaha midigta fog u janjeera ay markaa ka qayb qaadanayeen aad uga soo horjeeda muslimiinta iyo dadka soo galootiga ah gaar ahaan dadka soo galootiga oo Soomaalidu qayb weyn ay ka mid tahay oo markaas ay Soomaalida afka lagu hayo marka arrinta ayaa jirta laakiin markaad eegtid shacab weynaha Ingiriiska ku nool gaar ahaan dadka Ingiriiska waa dad ilbaxa muddo dheer caalamka gumaysanayay isla mar ahaantaasna garanaya dhaqamada iyo diimaha kala duwan oo fikirkooda aan aaminsanayn oo diintaada iyo dhaqankaaga midnaba aan kugu soo faragelinaynin marka cabsidaa guud waa jirtaa markay dabadbaxayaan laakiin sida kale waa ammaan annagu waxaan idinkaga roonahay ma jiraan in badan dad ah oo markaa hub sharciyeysan iyo mid bilaa sharciya haysta oo weerara laakiin waxaa jira dad tuuga oo hub wata way jiraan laakiin marka idinka laydin eego Mareykanka aad iyo aad ay yar yihiin dambiyada ka dhaca Mareykanka statistiga marka la fiirshay Ingiriiskuna aad iyo aad ay u kala fogeen Ingiriisku aad buu yar yahay waan ka yarnay dabcan waa sidaasi ayadoo ay tahay haddana dhinaca kaleeto madaxweyne Donald Trump iyo dowladdiisa soo galootiga si adag ayay uga hadlaan una wajahayaan waayadan ugu dambeysay muslimiinta sidoo kaleeto oo dabcan soo galootigaas in badan oo kamid ay kamid yihiin marka xaalad adag ayaa jirta guud ahaanba wadankan intaas haddaan taas uga gudba laakiinse arrin la taxluuqdo oo ku xiriir ah ayaa jirto mayorka magaalada New York Sokhran Mamdani ayaa waxa uu jeediyay khudbad cajiib ahayd maanta oo uu uga hadlay 250 guurada ka soo wareegtay wadankan markii xornimadiisa uu helay Mamdani si cajiib leh ayaa waxa uu markaasi Trump wax kasta oo siyaasadiisa ka dhan ah uga soo horjeestay waxa ugu muhiimsan haddaan soo qaadano waxay ahayd dadyooga soo galootiga maadaama magaalada New York ay tahay magaalo dadka jooga ay yihiin intooda badani la dhaho 90% wax ka badan waa wada soo galooti ganacsiga ugu badan ee caalamka uu yaalo ma aragtay haddaad fiirisid asaga waa wadankan kuma soo dhalnin uu ku koray oo kaliya waalidiintiis kama soo jeedaan waa muslim waa dadka laga tirada badan yahay waa maaragtay democratic socialist aragti ahaan xataa dimuqraadiyiinta weli kasii yara duwan marka Sokhran Mamdani waxyaabaha ka hadlay waxa kamid ahaa in uu ammaanay wadankan inuu wax ku yahay marka la eego dadyooga kala gedisan ee yimid ee qoomiyad walbaba ay wax la yimaadeen wuxuu soo qaatay Shiinaha yimid ee wadankan suuqyada waaweyn ee Chinatown oo kale New York ka furay adduunka oo dhan uu ka adeegto wuxuu soo qaatay warshadaha ay keeneen dadka Irishka ah waxa uu soo qaatay dadka Jewishka ah ee wadankan yimaaday ama Yahuudda haddaan dhahabo wuxuu soo qaatay Suuriyaanka oo ognahay hadda si gaar ah inay u wajahayaan caqabad xoogan oo madaxweyne Donald Trump 160,000 oo ka badan dad ah oo wadankaas u dhashay Suuriya uu yiraahday meeshii lagu arkaa lagu masaafurin karaa markii loo diiday TPS-ka 350,000 oo qof oo Haitiina oo soo galootiya sidaas oo kaleeto marka xataa lawyer aan asbuucan la hadlayn uu yiraahday Soomaalida sharciyo in la siiyo wadankan hadda 100 qof ee codsato yiraahday lawyer Amin Harun ayaa ii sheegay wuxuu yiraahday 100 qof ee codsato inay sharciyo helaan waxa laga yaabaa 98 qof oo kamid ah in loo diido oo laba kaliya la siiyo meelaha qaarkood aad bay u adag tahay waayo
maxkamadihii oo la bedelay jaajajkii qaadiyadii oo baqaya qaarkood oo nacayb uu ku jiro waxyaabo fara badan oo is aruursada ayaa keena qaadigii loo arka xataa inuu sharciyo siinayo dadka soo galootiga ah xataa waa la bedelayaa maxkamadihii shaqooyinka laga ruqseynaya marka xilli adag oo qaybsan uu ka jiro waddankan maraykanka si gaarana loo arkayo cadowtinimona loo abuuray dadyooga soo galootiga ah ayaynu ku guda jirnaa Trump dabaaldegan wuxuu ugu dabaaldegayaa 250 guurada ah asaga oo kumanaan ciidamada Mareykanka ah keenay magaalada caasimadda hadda caaw lama geli karo meel buu xiran tahay taagiyada Mareykanku soo saaray awoodiyaan soo muujinayna uu leeyahay dadkuna waxay leeyihiin arrintan waxay u dhadhamaysaa sidii inay tahay madaxweyne dictatoriyada waxay uu ku dhaqmaayo inuu Trump ku dhaqmaayo marka xaaladdu aad bay u adagtahay Cabdixafiid saara aadan ku mahadcelinaa waqtiga ay ugu martiqaaday halkan waxaan rabay inaan ku weydiiyo waayahan aniga ismaan arkin xagee ka dhacday waxaa laga yaabaa dad fara badan Cabdixafiid oo inay dhahaan Cabdixafiid iyo Sahra caaw haddana maybe waa isku soo noqdeen oo khadadkii bay soo galeen laakiin sidaas si ka duwan waxaan rabaa inaan daawadayaasha u sheego Cabdixafiid weli annaga haddaan khadadka soo gelin dhinacyada kale ayaan isaga xiranaa waa ku faraxsanahay inaan wejiyadayna caaw ay wada arkayaan aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdixafiid maxamuud jaamac ayuu kaasi ahaa madaxa Brit Somali TV oo London asagoo ku sugan xilligaanba ii warramayay